السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها صوماليات يا لمان ولا لها مسلمين تابا ميلاد شوكتا موحان إدلنا عيد مبارك إلهي سبحانه وتعالى أنت أي أسر تودي وما أنت عرفتها إننا حج المبروك مقبول الله أقرنقو إلهي دنبيدو ده أقول لافو أنتي أنا أسرو من إلهي هأغيره ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajeynaynaa caafimaad qab cimri dheer iyo cibaado suuban iyo in Ilaahay qulubteena isu soo dhaweeyo oo la iscafiyo oo la isjeclaado oo nidaamaadka iyo dawladaha iyo amriga iyo mas'uuliyiinta iyo waxa yaroon haysana kuwii dhowrta oo ilaaliya in Ilaahay naga dhigo fursadan anigoo ka faa'iideysanaya ayaan waxaan jecelahay inaan walaalaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba aan u tilmaamo inay ilgooniyo ku fiiriyaan dadka danyarta ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo khaas ahaan wadankeeni ku sugan waliba waxaan gooni ahaan u sii tilmaamayaa reeraha abayaashood ay qaadka cunaan oo laga yaabo runtii inaan bulshadu aysan si gooniya aysan uga warqabin oo qaarkood badan ay daruufo adag ku sugan yihiin qaarkood badan aysan awoodin inay la ciidaan caruuraha asaagood ah masiibadaas ku habsatay awgood hadda waad garan kartaan balwadaas qofka ay qaado waa nin gardaduub loo hayo nin gardaduub loo haystana dee xaas iyo caruur iyo reerkaasi daruufaha ay ku sugan yihiin alla ilaahay unbaa og waxa ay halkaas kusoo gaareen oo ay ku survive garoobaan waa samirka iyo dulqaadka iyo xarig ku xirka hooyo Soomaaliyeed mooyee mar hore ummadda Soomaaliyeed oo dhan baabi'i lahaayeen xaaladaha ay aabayaashu ku sugan yihiin awgood marka dadkaas haddaad daris la tahay iyo haddaad qaraabo la tahay maalmahan oo kale ha laga warqabo ilgooniya ha lagu fiiriyo in agtooda lagu wada alla baryo meel walba oo suunta iyo alla bariga iyo hilibka haadaya laga yaabana dadkaas dariska inaan dab laga shidin baa dhici karta marka ilgooniya ha lagu hayo ayaan leeyahay reeraha qaadka cuna waxay la mid yihiin dadka baahiyaha gaarka ah lahoo kale oo aan wax badan awoodin mararka qaarkood waxaa la oran karaa dadka baahiyaha gaarka qaba oo kaba soo qaadin lugihii ka curyaaba ama gacmihii ka naafa ah laakiin maankiisu juusta yahay ayaaba ka fursad roon qaadku wuxuu qabsadaa oo curyaamiyaa maskaxda waana sababta loogu yeeray maandooriye marka dadka xaaladahaas ku sugan oo maankoodu doorsan yahay maalmahaas ciidayo kale waxaan aaminsanahay in si gooniya looga warqabo laga farxiyo wixii loo awoodo hooyada iyo caruurta loogu dhiibo hooyada iyo caruurta loogu dhiibo laga farxiyo la siiyo wixii la siin karo walaalahaas ilaahay masiibada ku habsatana in duco iyo kalmad san iyo waano iyo hoos ula hadal in runtii in waa sadaqo kalmadaas wanaagsan ilaahay baa hanuunka haya kumanaan baa ilaahay ka soo hanuuniyay anigaan idinla hadlay ka mid ahay marka sidaas wanaagsan oo degan in iyagana wax loogu sheego oo aan farta lagu taagin oo la oran Soomaalidu waa iska hadal qalafsan tahay waa kii iyo waa u dhamaatay iyo barcaaqibaa malaha iyo qaad baa talaf ka dhigay iyo waxyaalahaas runtii waa nabarada qalbiga dhaawaca qofkii oo awal banaafa ahaa oo self esteemkiisi kalsoonidiisii iyo nadaafadiisii iyo wixii oo dhan iyo ilkihiisii iyo midabkiisii iyo wixii oo dhan sii qayrmayaan oo u sii gurmayaan kalmadahaas haddii lagu sii dhaho shaki awalba cugdad nafsiga uu naftiisa ka qabay ayaa u sii confirm garoobaysa waxaana laga yaabaa inay ku sababto inuu successka iyo guushaba ka quusto inuu asagu inuu aamino inuuba yahayba wax nin ka yar يعني qof nin ka liita inuu halkaas isgaarsiiyo oo uusan barcaaqibaa lahayn hadday bulshada ku celceliso barcaaqibaa ma laha waa talaf warkaasi waxba lama joogo qofka waxay ku sababi kartaa runtii inuuba aaminaba negativekaas badan oo farta lagu wada fiiqayo marka hal laga daayaan oran lahaa niyadda loo dhiso waliba xiliyadan maalmaha ciidaha iyo farxadaha ilgooniyaha lagu hayo iyagii qoyskooda hadii laga farxin karo iyo hadii wax loo awoodo hal la siiyo
hana loo duceeyo insha allah waa dad walaalaheena oo nala ka haysto runtii anigu waxaan u arkaa walaalo Soomaaliyeed oo la gumaysto waliba wiigi xorriyadda ayaan ku jirnaa laakiin waxaa la oran karaa runtii walaalaha Soomaaliyeed oo qaadka cuna iyagu wali xor maaha waana iyagaana hordhigaya masaladaas haddii aadan waqtigaada xor u ahayn mar allaala markaad indhaha kala qaadid wax u horeeyo oo kugu qafilan oo ku galgelinaya oo ku ordisiinaya oo qaad yahay waqtigaaga xor uma tiid haddii shilin allaala shilinkii ku soo gala caruurtaadii oo aad u gaajaysan oo aad arkaysid oo xaaskaaga iyo reerkaaga iyo meel walba dayn farqaha lagu dhagan yahay haddaad intaad ignore garayso aad qaad u geyso ula gariirayso deeq iyo dayn waxaad heshaba inaad qaad ku gadato lacagtaadana free uma tiid xor uma tiid marka waqtigaagiina waa la gumaystaa meeshaad ku isbeen garay lahayd xoolahaagiina waa la gumaystaa intaas waxaa kuu sii dheer sidaad u fakari lahayd iyo hiigsigaagii oo dhan baa waxaa lagu soo koobay maanta xaggee kiilajaada ka helaa iyo yaa la fariistaa marka maskaxdaadiina waa lagu gumaystaa marka maskixiyan baa lagu gumaystaa maal ahaan baa lagu gumaystaa waqti ahaanna waa lagu gumaystaa saddexdaas haddii laga cariyaamiyana wax aad uga dabaaldegto 1 July 26 June Somali Independent Day wax aad uga dabaaldegtaa haddii aad qaad cunto ma jirto because adigu inaad isxorayso inta aadan nationka la dabaaldegan walaalkayna la ka haystaa tahay Kenya iyo Ethiopia ku gumaysta xoog kugu haysta dawladii ka furfuri lahaydna iyadaaba $4 iyo bar ku kor saarto tir gumaysta oo digada ka dhiga oo ilkaha ka daadiya aniguna $4 ka iyo barka ay kor saara waa yaani waxyaalaha cajiibka oo wali hore loo arag weey يعني أولى الأمر كل أرتي وحن كل أرنا هيا مجا دلك يدتك مجا إلهي من كل أرنا هيا إن دتك يدلك كشقي دتك كل أرتي وحلمان لها وسير لها ومدعوين لها ويري هدنا دتك ود دنيرا أو ود عيبسنا أو وليتي أو ما أنت كلمة مسكحيا mental health support one-to-one sessions مسكحيا إلا دسو قلوبتودا لا إلالي دادك اللي ربي إني سيرفيس كاس أراديان ولا تعالان ولا لها ظلمان أوكي إثيوبيا دروغدودا لوgu duleeyay inay $4 iyo bar sokor saartaan waa musuq maasuq ugu dulisan ugu daciifsan ugu dadnimo xun oo inay hogaamiye sameyn karo وزارة مالية عشور مال لقى بعيو مسق قلنا بحاران لكن واحد وين ولا كلا بلايا ولا أركجري لكن the most vulnerable part of society دتك أقول لي ما تدا يعرور تأي عنق ير بعاوة قطن أنت المقال كان دوبي كواي قاعد هايسا مسؤول سومالينا مشوا سيف ده عنقاس عانيس أوران لها بلس كسو صار لها بيرو عنق هقده الله لها أنيقنا $4 يبرئي كرسار عدي قضيسة هقده مسؤولين تنوح عليه والإلهي أمدان وقبقى والرب سبحانه وتعالى إذا أغورتي أمدان وقبقى انتا سان كسو كوبيا فرين تيدا عيد مبارك بعد الله ميلا ودول جوكتان با المسؤولين تنوح ودعينا إلهي حقا هقرنسي إلهي حقا هقرنسي إلهي حقا هقرنسي أو munkurkaas xaaraanta oo raaciyada la yiri hadaad gacanta ku reebi kartaan ku reeba anigu ma awoodo xasan sheekh maxamuud ba awoodo anigu ma awoodo mas'uuliyiinta dalka awoodo laakiin anigu waxaan awoodaa afka inaan ku reebo waana ku celcelinayaa inta nafta igu jirtay insha Allah biidnillah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa saacad ba afrika iga hartay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa maalinka qiyaamada la qaawan yahay facuhu linnaas kuwa dadka anfaca oo rabbi jecel yahay in ilaahay nagu daro aniga inta ka qayb qaadataba ciid mubaarak ayaan idin leeyahay mar kale walaalahaasna il gooniyaha lagu hayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh